markale ku soo dhawaada daawadayaal qiso kale oo ka mid ah qisooyinka xaqiiqda ah ee cajiibka ee dunidan ka dhacay. waxaa jirtay gabadh aad ugu xiran Allah subxaanahu wa tacaala. waxay ku wanaagsanayd ducada, salaada. gabadhan waxa ay guursatay nin muddo 4 sano ah waxba maysan dhalin. ilaahay amarkii sanadkii 5aad ayaa iyada iyo ninkeeda ilaahay wuxuu siiyey uur. aad bay u jeclayd inay dhasho cunug ay markaasi aragto. markii 4 bilood uurkii uu gaaray waxay u yimaadeen dhakhtar. waxay doonayeen inay ogaadaan cunuga caloosha ku jira xaaladiisu sida ay tahay. markaa kadib dhakhtar kasta oo ay u tagaan wuxuu u sheegayay cunuga caloosha ku jira inaanu ahayn cunug wanaagsan oo bahal u eg, balse ay iska soo rido si dhibaato uusan ugu keenin hadhow xilliga dhalmadeeda. laakiin iyadoo ilaahay bay tala saaratay oo waa ay diiday. laakiin ninkeedii wuxuu aaminay hadalkii dhakhaatiirta, wuxuuna ku yidhi haddaadan soo ridayn cunuga orodoo idhaaf oo iridkaasi ka bax. gabadhii uurka lahayd way soo baxday. waxay timid gurigoodii. waxay soo xusuusatay axaadiistii nebiga sallallahu calayhi wasallam ee oranaysay ilaahay habeen walba qaybta 3aad ee habeenka wuu soo degaa, wuxuuna weydiistaa addoommadiisa ciddii doonaysa inay wax weydiisatona wuu siiyaa. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. gabadhii waxay bilowday inay habeen walba waqtiga dambe ay Allah ka ducaysato cunugeeda caloosha ku jira oo ay weydiisato in ilaahay ilmaha caloosheeda ku jira uu u hagaajiyo. habeen walba waxay ku dhafri jirtay baryada ilaahay, waxaana ay baryi jirtay Allah subxaanahu wa tacaala in waxa dhakhaatiirtu ay sheegayaan uu wax wanaagsan ugu bedelo. cunugeedana ay ku adkaysatay inay dhali doonto isagoo wanaagsan. maalin maalmaha ka mid ah gabadhii oo joogta guriga ehelkeedii oo ducaysanaysa ayaa waxaa qabatay fool. waxaa loola soo cararayaa isbitaalkii bal sidii ay u dhali lahayd. markii isbitaalka la geeyay ayay gabadhii dhashay. reerkeedii ayaa soo wacay ninkii qabay gabadha. waxay ku yidhaahdeen kaale carruurtaadii bal soo eeg. markaas ayuu yimid goobtii isagoo niyadda ku haya carruurtii bahalka u ekayd. laakiin markii uu soo galay qolkii wuxuu u soo galay gabadhii oo dhashay 2 gabdhood iyo 2 wiil. aadna uga shukrinaysa Allah subxaanahu wa tacaala. waxaana ay muujisay inay ku adkaysatay in qadaha ilaahay iyo wuxuu qadaro ay dhacayaan, laakiin dhakhaatiirta warkooda aan la gelin. dhakhaatiirtii waxay sheegeen qaladka dhacay inuu ahaa 4 carruura oo isduldul saaran oo dhowr gacmood iyo dhowr lugood markii ay arkeen ay u qaateen in cunug caadiya aanu ahayn, balse uu yahay waxyaabo bahal u eg. sidaana ay ku dalbadeen in gabadhu cunuga ay iska soo saarto. laakiin ilaahay ayaa siiyey 2 wiil iyo 2 gabdhood. ducadeedii habeen walba ay ducaysanaysayna ilaahay wuu aqbalay. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.